qoraal goordhaweed ka soo baxay midowda musharaxiinta ee mucaaradka ayaa waxay si adag uga soo horjeesteen qodobadii shalay ka soo baxay golaha midowda amniga qaran kaasoo shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho. midowda musharaxiinta ayaana kasoo horjeesta abraaci ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ahaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka. war-saxaafadeed ay soo saareen ayaa waxay ku tilmaameen in habraacaas ay soo saareen golaha inuu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 27 May oo dhigayay in doorashooyinka ay ku dhacaan si cadaalad oo xor iyo xalaala. midowda musharaxiinta ayaa dalbaday in 135 odayaasha dhaqanka ay saldhig u noqdaan soo xilista orgooyinka doorashada xildhibaanada, waxaana ay sheegeen waxay dhaheen golahu wuxuu arkaa in habraacu uu dusha sare magaca doorashada ka sito laakiin gudashadiisu uu magacaabis yahay, wuxuuna ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shubto ay ka mid tahay bay yidhaahdeen colaad sokeeye si haatan dariskeena iyo dalalka kale nala midka ah ay ka dhacday. in shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay ka aamin baxaan natiijada doorashada boob iyo kushubasho ah, in nidaamka dowladnimada uu waayo sharciyanimada iyo aqoonsiga shacabka waxgaradka iyo siyaasiyiinta doonaya dowladnimo saxa. 4 in kooxaha xagjirka ka macaashaan aanada iyo weliba tabashada ka dhalanta doorashada boba. haddaba golahu wuxuu ku baaqayaa golaha wadatashiga qaran inay dib ugu fadhiistaan go'aano ay qaataan, wuxuuna golahu soo jeedinayaa bay yidhaahdeen in 135 oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan soo xilista ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka. 2 maadaama uu golaha shacabku metelo beelaha, waa in odayaasha dhaqanka oo kaashanaya nabadoonada iyo caqilada jufada kursiga ku aastaysan loo madax baneeyo xulista ergooyinka. kaalinta dowlad goboleedyadana ay ku ekaato fududeyn iyo amniga doorashada. 3 in la suuliyo caqabadaha badan ee laga gudbay doorashooyinka, gaar ahaana kuwa la xiriira dembi baarista iyo qarashaadka laga cusleeyey tartamayaasha iyo ergadaba. 4 in la waqtiyeeyo jadwalka doorashada oo 2 jeer xilligeedii horey dib ugu dhacday. 5 in doorashadu ay ka dhacdo goob dhexdhexaad oo amnigeedu sugan yahay. amniga goobta ay si wadajir ah u sugayaan booliiska Soomaaliyeed, booliiska dowlad goboleedyada federaalka iyo amisoomba, iyagoo ilaalinaya nabadgelyada goobta islamarkaasna fursad galaangal oo siman u siinaya musharaxiinta u tartamaya xilka xildhibaanimada. 6 in aan xubnihii baarlamaankii hore baaritaan laguma celin, halka tartamaha cusub ee xilka xildhibaanka looga joojin karo oo keliya fal dambiyeed ay maxkamaddu xukuntay iyo in lagu hayo fal argagixiso caddeena. 7 si loo soo saaro go'aanada siyaasadda iyo howlaha farsamo, waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal loo madax banaaneeyo kaalinta farsamo ee hirgelinta doorashooyinka. goluhu wuxuu ku adkeysanayaa in doorashadu ay noqoto mid xor oo xalaala, taas oo dan qaran oo masiir ah kana gudubsan maalyira tan tartame kasta ee xilligani u dhow. waxaana ugu dambeyntii goluhu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay kaalintooda ka qaataan sidii doorashadu u noqon lahayd mid xor ah oo sharciyada haysata, islamarkaasna looga fogaan lahaa wax kasta oo keeni kara in doorashadu ay noqoto mid boob ah. go-aankii shalay ka soo baxay golaha midowga ayaa waxaa qoraaladii ka soo baxay qaarkood ay ahaayeen sida lagu sheegay kuwa u eg in ku shubasho doorasho in ay dalkani ka dhici karto loo asteeyey, waqtigaas oo la sheegay in ay noqonayso in mar kale dib loogu noqdo gudaanba arrintani. waxaana wararka siyaasiyiinta qaarkood ay sheegayaan in arrintan loo sababeynayo in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay dana waaweyn ugu jirto heshiiskii shalay gaareen, taas oo la sheegaya in haddii qaarkood ay musharaxiin madaxweyne noqdaan ay u suurtageli karto codadka ugu badnaa xildhibaanada inay helaan, maadaama ay soo saarista xildhibaanadani ay noqonayso mid iyagu ay gadaashiisa ka hogayaan.